ku dhaqsada harba garad marka Ahmed walka balooran kara arrimo badan halka laga arki kara marka waraysa waxa laga arki kara horta marka hore inay diiniyan tahay dadka hadii jeer cilmada ku waxgelisanayeen wariyaan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh halkani waa abwaandaka YouTube iyo Yol TV waa labada YouTube mataana waxa uga barateen barnaamijyo mugiyo miisaan le murti iyo midhale maad iyo madadaalale bariyahan waanu idinka raagnay xaqii sheekay shaahid maanta waa abwaandako iyo abwaandabka oo idin sida barnaamijkii la magac baxay sheekay shaahid balabwan maxaa loo dadweynaheena waxa leenahay barnaamijyada aad ka daawataan labada YouTube Yol TV iyo abwaandaka TV waxaad ka helaysaan mar walba barnaamijyo idin dhiirigeliya oo xiisala gabayo heeso iyo waliba nooc kasta aad doonaysaan laakiin ha ka ilaawina like-ta share-ta commentiga iyo waliba waxa ku daraysan maanta waxaan idin hayaa anigu ana bilaabaya cidina igu soo dhaweyn mayso ana isku soo dhaweyn waxaan idin hayaa siyaako magaceeda la yiraahdo kiilaha wala soo sidaa kiilaha wala soo sidaa bariyaha kamida ayaa rag 10 nin oo meel saaxiib ah oo qariyad ku wada noolaa ayuu nin kamid dhintay sagaalkii kale waxay dani baday inay meydkan aasaan waa 9 nin dabeeto sagaalkii nin baa madaqayadii iyo majaafadihii iyo qaatay wixii jaa xabaashi lagu qoday xabaashi ayay muddo qodayeen dhulkiiba didib ku noqday waa iska nasiyaan hay isu weydaartaan midna ha tuuro midna ha qodo midna ha tuuro midna ha qodo midda isu weydaaranayeen duhurkiiba ku gaadhay goor casarkiya iyagoo aan biriyo bastoole doonayn ayay iilkii duween hawshii markay dhameeyeen ayuu roob ku soo daatay dabeetana roobkii baa shaqo laba dhinac uga yaacda abaar markay roobkii ka jirsanayeen roobkii qaaday ayay qoladii xagga waqooyi u yaacday ayaa nin soo diray oo yiri bal in xabaashi biyo galeen iyo daan wax bal hor soo eeg qoladii kalena nin bay soo dirtay ninkii la soo hor diray baa soo horeeyay dabeedna isagoo iilkii galay oo ciid yaro ku daadatay wax ka hagaajinaya ayuu ninkii labaad xabaashiisa soo dul taagay marka ninka hore soo galay uu arkay ninka soo taagay ninka soo dul taagay isagu arka kanisa ninka iilka ku jira ma arko dabeetana iilkii buu sii ku foorarso talo ciid ma gaadhay iyo wax dhiirigii baa la siibtay xabaashi baa ku dhacay ninkii ka buuxsada qoladii soo dirtay oo halkii fadhida ayuu soo hayo dehin raagay nin mala ka soo baxsaday soo haystade ayuu tagay arba garad dabadna halkan abaar neefkadu hadli waay xabaashi ka warano miya roob biyo galeeno aan waryaale waxa yeeshan ninka waa la sugayaa la dhaqsada buu ninka wadilaawi doontaan dhawo isbedelayaan waxaan inta aad nooshahay ma rabbuka rabbiga ku yahay man diinka diinta uu tahay iyo man nabiga ku yahay xafida marka la leeyahay inta badal uga celinayo ma mooda halkaas inay yaaniga qofkii isagoo nool ba haduu garan waayay maxaad u maranaysaa haduu dhintaan adigu warta de qofku xitaa marbaad ku riyoonaysaa iyadoo saasoo kale lagu qabtay aad garan weydii iyo tan de life-ka loo qabtay mid waliba waa digniin baan lagu arkaa arba garad qofkan haday ku seef garaysanaan lahayd allahay waa alle ila wuxuu haystaa in mala qabtay allahay waa la booran la arma garad waa aslee kaasi mala aduu sida ku dhiman laana mu garteene waa bal allahay waa alla isku saf gareeyo ku dadaala assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waxa ku daraya sheekadaas wallahi waa sheeko qosol badan koobde midda kale waxa kale oo meesha ku jirta ninkan ma oga isaga inuu iilkan sugayo qabrigan wuxuu moodayaa qofka dhintay inuu sugayo laakiin inuu macalin isagu iil joogayo lahay haga sheekada laga daba geemayaan waxaan lahayaa sheekada Ahmed waan ku darayaa oo dalabadinkeeda leeyahay dhacday muddo dhaweed oo bari dadku ay tahriibi jireen ama dibada gali jireen waxa dhacday laba noo saaxiib oo had iyo jeer kaftamo oo sheekaysto sheekadoodu aad ka dhaxayso iyagu waliba isriixa oo ku tartama xagga inamada ku tartama xagga dhaqaalaha ku tartama xagga sheekada ayaa laba inay dhaleen baa tahriibi labadiina isku gobol bay galeen isku degmay galeen isku xariiq xunti bay galeen ka bacdina arintii baa dalbkeed leeyahay inamada waa shaqo tageen oo waa shaqo reerina waa sugayeen inaan wuxuu sameeyay lacag markii wuxuu helo reerkii biil buu qoray biilkaas oo $50 inuu bishii soo diro marmar uu waayaba 50ka iyo wixii la mid ah inankii labaadna isla bishii labaad odayga abi wala soo wuxuu yiri waxaan doonayaa abu inaan gurina ku dhiso lacagtaadu biilkana waa $500 intaas soo dalbkeed leeyahay hawlana waan galaya waxyaabo kale waxaan doonayaa aad samayso arinta noocaas buu soo bandhigay odaygii kalena inankiisa wuu hadlaa hanfaq weynu sheeg kii kalena wuu hadlaa waxa yiraahdaa waraa badee bal soo daawo maxaad haysaa
bishan biilka uu habsameen dee aaba wali wixii noloma dhiibin oo arintii waxba yara siiyay bal asugu biiraad ka bacdina odayaashii baa maanta bashaakaystay kii inankiisu hanfaq weynaha noqday ayaa kii kale la kaftamay oo u faanay wuxuu reebay waxaan ku weydiiyay aniga inankii unka balodhan jaaxiyo biilka iyagu waxa la soo meel ka go'an gaariga waan iibsanaya waa maxay inankaaga la legdamaya $50 mar reebo waaba way oranayo waxaan u maleeyaa wallahi Abdullah warta horta waa arkaa wax soo dhacayaan laakiin inamadii inankayga waa kulma baxayee wallahi arinta haddaan qiyaasay waxaan u maleeyaa arin inankaygu diiday oo ba kaagu yeelo arintaas halkaasiga horta waa macquul sheekadaas rag waaweyn waa hay ragaasi waa raga arinta ka sheekaysta ina dad badan oo imika isku gobol jooga oo isku wadan jooga ayaa midna saa soo dhiijinaya war ma garata midna uu masaariftii u taaglayay marka waxaan leeyahay kuwa xoolaha loo soo dhiijinayo waxa laga yaabaa wax ina ka kala diiday inuu kaagu yeelay waa bal halka ilmada la xiriiro halka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh halkaas ay noogu dhantay maanta sheekay شاهد يكون كده دبي إن شاء الله بسم الله الكريم